laal shacab oo Soomaaliya banaabax ayaa isugu soo baxay faras magaalaha degmada Balxawo waxayna dibadbaxani uga soo horjeedeen kooxda Al-Shabaab oo ay sheegeen inay markaas dhibaatooyin ku hayso shacabka degmada Balxawo iyo waliba deegaanada markaas hoos yimaada gudoomiyaha maamulka degmada Balxawo Maxamuud Xayd Cusmaan iyo taliyaha nabad sugidda gobolka Gado Cali Xasan Deer ayaa halkaas kula hadlay shacabkii ka soo qayb galay banaabaxani waxaan u baahanahay marka in ساعات كان يقال وقيلدان يكون إلهي تتعافيه إلهي لا هنونيه ويكون جيراننا إلهي كسر قلوبته وحلك وحال دي شيء نعم قال سحر البركة وضدك كقاية يسمى لي ذي كي ذكر الدشي سكوف عليه مع هذا يا شباب نبدأ نحتاجه الشيء نبدأ نحياله بوا هذا الله وطبعا أنا عليه يدك السداي جاي كان السداي قاتل بدل السداي إذا بدنا يدك مساكين تودي سر هذا قاتل السداي مركز الصومالي أنا بقى كسيها مركز هذا الحوار وتصفي عنه يمارس الثقافي عنه أيوة ما ممكن نقول نظام الدولي ولا يمكن له هذه كلنا تطلع كم